وهجاجة داوديال هالكان وتلفزيون كارمها بولشة تي في 24 xiliyadan oo kale waxaynu uga baratin in idin soo baahino barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wargeysyada iyo wakaalada caalamka waxa ay dunida ay ka qoreen wargeysada xilligan aan idin hayo idin aad daawad doontaan daawadayaal waxa ka mid ah wargeyska la yiraahdo Star ka soo baxa dalka Kenya ayaa wax ka qoray toddobaadkan xaaladihii murugsan ee ka dhaxaloolsnaa wadamada Soomaaliya iyo Kenya barnaamijka ayaadna ku daawan doontaan warbixinta uu qoray wargeyskaasi sidoo kale barnaamijka inta uu soconayo waxaana idiin soo gudbinayaa wargeyska la yiraahdo Washington Post ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa isna wax ka qoray xaaladihii jahwareerka ahaa ee maalmihii dambe ka dhex taagnaa wadamada Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka barnaamijka ayaadna ku daawan doontaan faallooyin iyo warbixino wargeyskaasi toddobaadkan uu wax ka qoray wargeysada kale ee toddobaadkan ayaa ka mid ah noqon doona wargeyska la yiraahdo dalka ee ka soo baxa magaalada Muqdisho waxa uu isna wax ka qoray dagaaladii u dambeeyay ee al-shabaab la galeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya barnaamijka ayaadna ku daawan doontaan inta uu soconayo sidoo kale barnaamijka wargeysada iyo wakaaladaha caalamka waxa ka mid noqon doona wakaalada la yiraahdo Sona ee ka soo baxda magaalada Muqdisho ee dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan war ka soo baxay dowladda waxa ay ku falanqaysay amniga magaalada Muqdisho iyo xaaladihii u dambeeyay amniga dalka barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan inta uu soconayo wargeyska la yiraahdo wakaalada la yiraahdo Anadolu ka soo baxda dalka Turkiga ayaa iyana wax ka qortay xaaladda aroosan ama ka dhex aroosan wadamada Mareykanka iyo sidoo kale Turkiga barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sabab ee dalka Yemen waxa ay qortay warbixin ay ciwaan kaga dhigtay waa xagee u dambeyn doontaa dalka Yemen barnaamijka ayaad ku daawan doontaan dabcan kama marna kaalimihii sugaaneed inta barnaamijka uu soconayo daawadayaal anigoo Cabdifataax Ali Cumar Tawakkal ayaa idin soo saaray halkan ka soo jeedin doonay ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wargeysada iyo kalada caalamka ee telefishinka arrimaha bulshada ee TV 24 xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho